السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شرفت لكم سو دhowaada YouTube page kan Cumar Shawkar cawad waxa isla falaqay doonaa maxkamadeynta ku socoto kooxda Manchester City oo ku xadgudubtay xeerarka u yaalo Premier League iyo FA-ga macnaha dhaqaalaha macnaha ciyaartoyda soo gadashada waxyaabahaas iyo marka nimanka waxa leeyahay Man City ahay maxkamadeyn culus ku socoto maanta waxa waa la dhageysanaa dacwadooda iyo doodooda waxa la dhageysanaa saddex waxa xeer ilaaliyaal oo ka socdo dhanka Premier League iyo Man City abukaatyaasheeda ayaa maanta soo fadhiisanaya leeyahay marka warbixintaas ayaa macnaha idin wadaagayna iyo waxyaabihii laga dhaxay mar labaad mar saddexaad ku soo dhawaada page-keena sida la soo warinayo waxa la leeyahay nimankii Man City ahay 115 dambe ayaa lagu soo eedeeyay inay ka geysteen ay ku xadgudbeen shuruucdii Premier League u tiil marka waxa la leeyahay waxa ganaaxyo fara badan ayaa dhici karto in lagu soo rogo oo maxkamadda ka soo baxo oo waliba go'aamo adag ay kamid yihiin oo number 1 waxa la leeyahay waxa laga yaabaa in Premier League dhanba dib looga celiyo oo macnaha oo Serie B loo celiyo League 2 loo celiyo League 1 iyo waxyaabahaas loo celiyo waxa dhici karto sidoo kale waxa dhici karta in koob ay hor u qaadeen dib looga celiyo waa penalty labaad oo macnaha waxa waaye ciqaabta labaad ugu adag waaye waxa kale oo la leeyahay sidoo kale waxaa dhici karta in lacag lagu ganaaxo lacag fara badan in lagu ganaaxo waa ciqaabta saddexaad ee macnaha la saadaalin macnaha la isdhihi karo waa lagu ciqaabi karaa sidoo kale waxaa dhici karto in dhibcal laga jaro lagu ganaaxo marka waxa leeyahay meesha dood adag ayaa ka socoto Manchester City waxay qabsadeen abukaatiyaasha ugu fiican dhanka sportska caalamka ayaa qabsadeen leeyahay oo inay isdifaacaan isku dayayaan dhinaca kale Premier League waxa waaye 115 eed oo nimanka lagu soo eedeeyay iskama indhatiri karaan waxaan marka horeba Premier League waa taqaana Everton ayaa horeeyay ganaaxa ku dhacay 15 dhibcood laga jaray ka sii horsaan oo kale hadda ka hor Leicester oo kale waxa waaye wuxuu ku soo eedeeyeen saan oo kale u soo eedeeyeen laakiin Leicester waa iska difaacday oo waagaas Premier League laga shaqeeyay waxa la mar hadiiba Leicester ganaax uu ku dhici waayay cid kale uu ganaax ku dhacay haddana Man City haysataa nimanka Man City waa taqaaniin oo niman lacag haysta waaye waxa ninkii lacag haayana mar walba ninkii lacag haystaan mar walba taliya marka ma noqon doonaan ma iska difaaci doonaan oo abukaatyaashooda ku filnaan doonaan in kooxda Serie B loo celiyo ka difaacaan ama in koob laga celiyo ka difaacaan ama ay ka difaacaan in dhibco laga jaro oo hadda waxa leeyahay hadii lacala ay horta way adag tahay oo nimankaas koob ay hor u qaadeen in laga celiyo waa adag tahay oo waligeed ma dhicin Serie B in koox loo celiyo waa la arkay waa wax jiro in dhibco koox laga jarno wax la arkay oo sanadkii hore la arkay waxa kale oo macquul in la arko in koox lacag lagu ganaaxana iyadana waa suurtagal marka waxa leeyahay nimankan lacag bis lagu ganaaxo wax macnaha sameynayso nimankan lacag waa haystaan wixii lagu ganaaxo iska bixinayaan laakiin muhiimaddu waxay tahay ama in dhibco fara badan lagu ganaaxo laga jaro seasonkan ama in Serie B loo celiyo oo League 1 loo celiyo si macnaha kooxda ciyaartoyda wax ugu tagaan oo macalta barayo wax ugu tagaan haddana kooxii Premier League oo dhan arrintan u dhigtaagayo oo ka warsugayo wixii ka soo baxo haddii maamulka Premier League ee macnaha nimankan ganaaxi waayaan macnaheedu waxa waa marka qof walba wuxuu rabaa iska sameeyo qof walba wuxuu qasi kara ha qaso ninkii lacag haystana waxa waa wax looma raacanayo Everton 15 dhibcood lagu ganaaxay oo Serie B ku sigatay inay aado waa ka soo dagaalantay marka waxa leeyahay nimankaas ganaax waa ku dhacay nimankan ugu yaraan sida la saadaalina waxa leeyahay nimankan ganaax ugu yar ku dhici karo waa in 30 dhibcood laga jaro seasonka hore si ka warqabtaa Man City wuxuu ku qaaday 2 dhibcood seasonkii ka sii horeeyay saas oo kale mar walba 2 season isku xigta Arsenal ay qarka u saarneed inay nimanka macnaha horyaalka qaado marka hadii 30 dhibcood laga sii jaro maxaa u malaynaysaa mislada Arsenal iyo Liverpool iyo xitaa United dad macnaha kooxo fara badan oo Janis ay heli leen ay helayaan ilaa City hadii saan ku socoto sanadkan iyo 3 sano socoto ayadina Premier League qaado u baahan tahay nimanka ciyaartooy weeraraan soo gadanayaan haalan waxa lagu leeyahay ninkaas 200 milyan ka badan ku baxay meediana waagi la soo gaday maxay ugu sheekayeen 60 milyan noo sheegeen marka waxa la ciyaartooy fara badan la soo wareegeen nimankan waxyaabo badan musuqmaasuq fara badan ay sameeyeen wax badan u qarsan marka ganaaxa maanta dacwadda la dhageysanayo wixii ka soo baxo kulli haddana waqti kale loo qaban doonaa in dacwad labaad laga dhageysto iyo mid saddexaad laga dhageysto ama in go'aanka laga soo gaaro mid noqon doonta laakiin waxa la leeyahay kooxii dhammaantood Premier League ilaa Europe oo dhan aba arrintan macnaha laga warsugayo hadduu nimankan uu qaban waayo ganaax uu qaban waayo PSG iyo Newcastle hadda carab ee gadatay wixii carab koox ee leedahay oo dhan
hadhow sidaas wadada Man City marayaan horyaalada dhan ayagaa qabsanaya sida Man City horyaalkan Premier League u qabsatay oo ciyaaryahan kasta usoo gadanayso oo 5 sano wax ka qaada la'yahay asaasoo kale waxaa ka dhici doonta Faransa hadda PSG tahay saasoo kale waxaa ka dhici doono La Ligaha waxaas dhan marka waxaa waaye footballka guud ahaanee ma u fiicnaba nimankan City in ganax la'aan waliba ganax muuqdo inuu ku dhaco caafimaadka footballka uu ku jira haddii marka nimankan la ganaxo yaa jaanis helaya Premier League wuxuu noqonaa tartan furan uu noqonaa 30 dhibcood haddii nimankan laga jaro micnaheedu maxaa waaye 110 dhibcood 30 ka jar meesha ugu badan ay keeni karaan 110 dhibcood ka soo qaad 30 ka jar marka 30 dii laga jaro meeqa noqonaysaa 80 dhibcood hadday dadaalaan 80 imaan karaan meesha waxaa joogta Arsenal jaanis helayso Liverpool jaanis helayso Man United iyo isheeg waxaa helaya Chelsea jaanis helayaan laga yaabo xitaa Tottenham inay jaanis iska hesho marka raggaas dhan Premier League wuxuu noqonaa markaas tartan furan xamaasadna wuu yeelanaa oo Premier League ay dan u tahay haddii laakiin nimankan la qabo waayo sheekada waxaa waaye 5 sano soo socotana ha iska qaadaano wixii ciyaartooy lacag ku bixi karaan ha ku bixiyaano saasay hadhow noqonaysaa marka maxay idin la tahay adinka macnaa nimankan in lagu ganaaxi doono Manchester City ganaax intee la eg ayaa ku dhici doona isleediin nala soo wadaaga comments-ka nagala soo wadaaga sidoo kale waxaa leeyahay waxaa dacwadan macnaha ka warsugaayo kooxda Everton saa ka warqabtaan waxaa la ganaacay waxaa 15 dhibcood maalin hore laga jaray marka 15 dhibcood oo laga jaray dib macnaha anaga maxaa nalooga jaray inay dib macnaha dood u furaan buuq u furaan ee keenaysaa leeyahay haddii nimankan macnaha oo la ganaaxi waayo mafaad marka waxaa waaye xitaa Europe Man City xitaa waxay dhib ku haysaa La Liga Real Madrid oo kale nimankan dan waxa ugu jirto in nimankan la ganaaxo haddii kale Champions-ka ku cariirinayaan saasoo kaleeto Bayern Munich waxaa dan ugu jirto in nimankan la ganaaxo PSG soo kale waxaa dan ugu jirto marka dadka dhan waxaa dan ugu jirto in nimankan la ganaaxo waana dambiye ay geysteen oo wax laga sheegayo maba aabo mafaad marka waxaa waaye 115 dacwo ama 115 eed oo lagu soo eedeeyay wax yar ma ah waxaa kaloo la yaaban yahay nimankan kalsoonida ee isku qabaa Manchester City kalsoonida isku qabto hal ciyaartooy kama tago Gundogan u soo laabtay koox oo maxkamad saaran oo 115 wax eed lagu soo eedeeyay adiga u soo laaban leed macnaha haddii kooxda isku kalsooneen waa su'aal meesha tahay ciyaartooydii Gundogan u soo laabtay ciyaartooy cusub soo gadanayaan kuwii hore waa joogaan Guardiola wuxuu leeyahay heshiis cusub aan saxiixa marka dadkan dad meel ku socdo ma aha waxay ogyihiin kulli waxay isugu kalsoon yihiin ogyihiin nimanka marka waxaa waaye aniga uma malaynayo inuu ganaax fara badan ku dhici doono uma maleyma Guardiola alla wareesta waxaa la yidhi waxaa laga yaabaa in 30 dhibcood laydinka jaro oo laydinku ganaaxaya see u aragtaa li war 30 dhibcood wax weyn maahan kula waxaa u malaynayaa in oo sheeg ganaax 30 dhibcood waxba nagama dhibay wax kale aan noo daran macnaha waxaas wax ka daranaa noo daran uu yidhi 30 dhibcood hataa ma laga jara hataa Tottenham ka kormarayna ninkaas nin waalama marka nimankan kalsooni isku qabaan laakiin waxaa lagu kala ogaanayaa la leeyahay caalamka indhaha caalamka dhan hayo Premier League in system shaqeynaya oo ka jiro xeer iyo sharcina oo ka jiro iyo in kale taa lagu kala ogaanayaa la leeyahay nimankan haddii nimankan ganaax u qalmo 115 taas dambi lagu soo eeday u qalmo haddii lagu ganaaxo markaas waxaa waaye footballka rajada haddii se laakiin shib laga dhaho Newcastle Man City qolada iska leh nimanka iska leh iyo Newcastle nimanka Newcastle iska lahaa lacag badan kun jar lacag badan mafaad marka haddii nimanka la taabo waayo Newcastle waxay leedahay naloo bilaabo waxaan ciyaartooy caalamka jiro dhan ay soo gadanayaan 300 milyan ku soo gadanayaan hadhowna waxay ku dhahay 30 milyan ka soo bixinay 60 milyan ka soo bixinay ay ku leeyihiin haalan nimanka naga dhaadhiciyo waayo 60 milyan ka soo bixinay 260 milyan hadii iska badnay kama yaro ninkaas lacagta ku baxay marka waxay noqonayaa kooxaha carabta ay leeyihiin oo dhan ee wado u furan u noqonaysaa haddii nimankan la ganaaxi waayo marka khiyaaray wixii ka soo baxo arrintaas waa arki doonaa saasoo kaleeto maalinimada hadduu ilaah yiraa oo beriye habeen dambe hadduu ilaah yiraa Champions League ayaa jiro asigana berri ayaa macnaha falaaqay ka samayn doonaa Champions League kooxaha dheelaayo iyo isku aadadooda say yihiin iyo falaaqay dhammaystiran berri ay soo gudbin doonaa inkastoo kooxdeena Manchester United aysan dheelin oo Europa League anaga Europa League aan noqonay oo u dhacnay khamiis League aan noqonay saasay tahay waa idin la soo wadaagi doonaa Champions League
iyo falanqayntiisa iyo kooxaha waaweyn oo dhan kulamada ay leeyihin waxaas dhan waa ka hadli doonaa kulamada ka horna waa ka hadli doonaa kulamada kadibna waa ka hadli doonaa sidaas ayaa noo balane subscribe-ta iyo like-ta iyo share-kiana laga hilmaamin taageeradiina u baahannahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu